السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود. أما بعد، waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay farxad weyn ay ah inaan ka soo qayb galo xafladda iyo bandhiga lagu maamuusayo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo qadarinta iyo xurmaynta dadka xambaarsan kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee dhalinyarada rag iyo dumarba. waxaa kaloo qadarin weyniya waalidiintii carruurta soo korshay ee waqtiga ku bixiyay ee u dadaalay inaan kala qayb galo farxadooda. qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun. maadaama uu waqtigu gaaban yahay la yidhaahdo xilli gaaban hadalkiisuna gaaban, in erayo ku saabsan farxadda ayada baan idinla wadaagaya insha Allah ta'ala. hadalkana waan soo gabagabeynaya. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa quraanka wuxuu ku yidhi waman yu'azzim dhalika waman yu'azzim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu 'inda rabbih. xurmooyinku macaani guud iyo mid khaasaba waa lagu sheegaa. gabagabaduna waxaa weeye diinka Ilaahay wixii la halmaala axadkii weynaya weynayntaas ayuu ku barakoobaya aakhiriya adduunba, ayadaasaana u khayr badan Ilaahay agtiisa. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعيرadu waa calaamadii astaamaha diimeed ama guud ama gaar ahaaneed. waxyaabaha ugu waaweyn ee diinkeena astaanta waa kitaabka quraanka, xurmayntiisa iyo qadarintiisa iyo barashadiisa. ruuxa muslimka intuu dunida joogo waxaa laga doonayaa saqiir iyo kabiirba kitaabka Ilaahay inuu u heeliyo. kitaabka Ilaahay waxaa loogu heelinayaa saddex qodob: inaad barato, ku dhaqanto, ummadana aad barto. kitaabka Ilaahay heelin buu inooga baahan yahay. heelaysuna waa inaad barataan, ummadana bartaan, kuna dhaqantaan. إلهي سبحانه وتعالى وحور يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيدنا علي آيات تفسير كذا مكن لويدي وحقوق السري علموا أنفسكم وأهليكم الخير، وفي رواية علموهم وأدبوهم. إلهي وحنا فريا أنا نفتنا يا أهل كنيو عرورتنا يا ضدكنا مسؤول كنا يكبد بعد النار إنه كبد بعد إنه سدين النار وكبد بعد إنه أمضى يا أهل كي حجالة يا عروتي أبد كله كبد بعدين ينا وحاوي إن أين نفتنا خير كأنه برو عرورتنا أينه برو كتر بينه وانكعربنا. إلهنا سبحانه وتعالى إنه أكاشنه أو شايدا. بعد السلف الصالح فضيل بن عياض وكلاء المهيسة مركو الدين كبر كد على آدياد ولد دارو أورنشر إله يو أنت أنو أنكري المها سوا تربية يا الله وضع تربية إنكري تربية المها مركز أدى عشان وضحت قبان كرتان قبطان بوحال الدنيا. إلهي سبحانه وتعالى هجاجنتي سي هنون كيسة إن أضرب بالهوس قشان بالدنيا، وإنه حوق إني حالة النكلية أن عسكنين بالرباء وعروتاسي. إلهي سبحانه وتعالى لو بريو وقت اللغو بحيو. إلهي حلية تكان إسانة صلاة الليل كي صلاتها واجب كإيو حل كستور ربي إذن وافتشيو عروته وإن لو بريو. إلهي إنو توسيو هغاتشيو أيها سان إذا أنفعها يو آخرية بعض بحسان إيسان. مسألة مركة ومسألة أساسية وكسابسن إنه ماشان كتاب إلهي سبحانه وتعالى دق لهين يسيد أنو حرمين لهين وقدر لهين. نبي حينو الشيخ عليه الصلاة والسلام هل أول السمايي أيا إلهي جنده وحقوق يا صدح الروح واللب فلاد أما قمون وحاو تقانا صدح الروح باكوتشر نقشو صبنوي عليه الصلاة والسلام. leebka axadka qoray ee geedka intuu ka soo gooyay tostoosiya hagaajiyay janno ku galaya. ninkii baarimaha uu ku duuyaha leebka ku xidhayna janno ku galaya.
ninkii intuu leebka qaaday ku dagaalama gaala ku ridayna janno ku galaya ubadkaas iyo ubaxa aad soo saarteen waxaa ku janno galaya hadday niyadeennu samaato hooyadii dhashay ee tarbiyaysay baa ku janno galaysa aabbihii biilayay ee wakhtiga ku bixinaya baa ku janno galaya macallinkii qur-aanka barayay ee wakhti ku bixiyay baa ku janno galaya ilmaha diinka barashadiisa axad walba ka qayb qaata ha yaraato ha badnaato walaalkii ahalkii baa ku janno galaya waalidka aruurba la soo kallahaya wakhtiga ku bixinaya ee u dadaalayaa ku janno galaya raashinkiisii noloshiisii caafimaadkiisii dharkiisii qalinkiisii iyo buuggiisii ka fakiraya shay yar ood samayseen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad badan ku janno geynaya hawsha marka aad haysaan waalidow ha fududaysanina waa hawshii aad aakhriya adduunka ku badbaadi lahaydeen macallimiintu laftirkoodu hawsha ayadaa waa inaysan fududaysanin oo janno ilaahay ku raadiyaan una dulqaataan wixii dhibee ka imanaya xadiid waxaa ku yimid inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inna min ijlaali illaah ikraama di shaybati almuslimi wa xaamili alqur'aani wa ikraama alsultaani almuqsit ilaahay weynayntiisii ilaahay qadarintiisa waxaa ka mid ah waayeelka muslimkee diinta ku ciroobay in la xurmeeyo la qadariyo ilaahay weynayntiisii ilaahay xurmayntiisa waxaa ka mid ah qur-aanka axadka yaqaanee xambaarsan in la xurmeeyo la qadariyo waxaa ka mid ah ilaahay weynayntiisa mas-uulka iyo amiirka caadilka ilaahay diinkiisa ku dhaqmay ummadda u garsooreen ee xanin in la xurmeeyo la qadariyo waayeel diinta ku ciroobay axad qur-aanka xambaarsanoo yaqaan mas-uul caadil ah oo dhexdhexaad oo garsooraa intaaba in la xurmeeyo waxay ka dhigan tahay alla weynihii ku abuurada xurmaysood qadarisay macallimiinta ha la qadariyo ha loo dadaalo ha loo gacan furnaado ha laga ducaysto carruurtiinna ooga duceeya dhalinta aad soo saartay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryahayaa il iyo ilacdiya carabba inuu ka ilaaliyo kuwa aad bara ida anfaca oo diin iyo dal iyo dadba anfacna allah uu ka dhigo shay ilaahay raalli ka yeena kuwa ku toosa ilaahay inuu ka dhigo subxaanahu wa tacaala baan rajaynayaa wadaadahaasi carruurtaan soo saaree wax baranaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda ha ku dhaafo waalidkiina maqsuudkiiyo dantuu ka laha allah u hergeliyo hadalkiiu intaasaan ku soo gebagabaynaya waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu